Dharar waliba waa fursad cusub oo aad ku dhisi karto mustaqbalkaaga. Haddii aad tahay arday hore uga qalin jebiyay ama sanadkan ka qalin jebinaya dugsiga sare, Jaamacadda Hormuud waxay kugu bishaaraynaysaa in diiwaangelinta ardayda cusub ee sanad waxbarasheedka 2026-2027 si rasmi ah u furan tahay. 15 sano ee la soo dhaafay, Jaamacadda Hormuud waxay kaalin lixaad leh ka qaadatay horumarinta tacliinta sare ee dalka, kana duuleysa mas'uuliyadda guud ee ka saaran bulshadeeda, si gaar ah tacliinta iyo xaqiijinta fursado waxbarasho oo ay u dhan yihiin dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo qalin bedelanaysa dugsiyada sare ee dalka. Waxay sanad waliba siisaa 10 arday ugu dhibcaha sareeya imtixaanka aqbalaadda ee qaado Jaamacadda Hormuud, ayagoo hela deeq waxbarasho oo dhameystiran ee heerka koowaad ee jaamacadda. Si aad uga faa'iidaysato fursadaha Jaamacadda Hormuud ay idinku talagashay, hadda iska diiwaangeli sanad dugsiyeedka 2026-2027. Jaamacadda Hormuud waxay idin haysaa 8 kuliyadood oo ka kooban in ka badan 35 takhasus. Kuliyadahaasi waxaa ka mid ah Engineering, Computer Science and Information Technology, Medicine and Health Science, Economics and Management Science, Geoscience and Environment, Agriculture, Arts and Social Science, Sharia and Leadership. Hasugin inta fursadu ka dhamaanayso, maanta isdiiwaangeli oo ka mid noqo jiilka hayaankooda waxbarasho ku xaqiijin doona Jaamacadda Hormuud. Si aad u hesho faahfaahin dheeri ah, booqo xarumaha kala duwan ee jaamacadda ee diiwaangelintu ka socoto. Diiwaangelintu waxay ka socotaa xarumaha kala duwan ee Jaamacadda Hormuud oo ku kala yaala xarunta Daarushuura Buulxuwey ee degmada Wadajir, xarunta Daarul Cilm agagaarka isgoyska Banaadir ee degmada Hodan, xarunta Daarul Xikma kiiloomitir 13 ee degmada Kaxda. Jaamacadda Hormuud iyadoo la jaan qaadaysa tiknoolajiyada casriga waxay ku diyaarisay inaad iska diiwaangelin kartid hab online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada.